marka laba nin oo qaadka cunta ayaa saaxiib ahaa waddanka Kenya ayay joogeen Soomaaliya markii civil war ku ka dhacay dadkii Soomaaliya dad badan baa u qaxay Kenya iyo wadamada dariska labada nin saaxiib bay ahaayeen nin xaas buu lahaa dadka qaraabadiisa ayna Yurub bay jireen ninna wuxuu ahaa nin aan reerna lahayn dad qaraabo ah oo u jira meeshana aysan jirinin ninkan marka xaas kale waxa loo soo diraa biil lacag fiican baa loo soo diraa qaadkiisu iska cunaa walaalihiis marka waxay yiraahdeen maalintii dambe annagu Kenya kuma biili karnee waan ku qaadaynaa soo bax oo ilmaha iyo islaanta soo wad isagii wuxuu yiri anigu qaadkan inaan ka taga ma rabo walaalahayna waxay leeyihiin soo bax sideen yeelaa kiiba wuxuu yiri adigu ma waxaad rabtaa Kenya inaad qaadka iskaga cuntaa de ilmaha iyo islaanta ana ku wadayay aniga igu qor aabaha reerka iga dhig maxaa la yiraahdaa aduguna qaadka Kenya isaga cun aniga xagga aadayo islaanta ilmaha ku wadayay isi qayl walaalahana lacagta ku soo direen habeenkii baa la qaylay oo marka arintu ku raacay hoostu ka xariiqay ninkii baa lagu qoray father of family oo noqday aabihii qoyska waxa noqday ninkii dulsaarka ahaa odagii wuxuu lumiyay mas'uuliyadii qoyska khayru mas'uul buu noqday qaad awgii buu ninkii wuxuu uga dhigay ilmihiisa aabe ninkii marka sidaas ayaa maaragtay sponsor bay ku baxayeen ninkii wuxuu ka haystay reerkii islaantii iyo ilmihii buu ka haystay kiina meeshii baa looga tagay isagoo aabihii qoyska ayuu Yurub galay kuwii la dhashay way ogaadeen waxay yiraahdeen kii doqonka ma meeshii buu ku haray naagtii ilmihiina ma nin baa soo ka haystay shilinkiina way ka goosteen ay u soo diri jireen shilinna ma hayo xilana ma hayo ilmana ma hayo Kenya ka tuugsaday waa wareeray waa dhaga beelay waxa soo dhanna dhibaatadii qaadka u geysatay naagtiina waxay tiri warkaas doqonka ma warabnay adigu na guurso aabay noqo adigu reerka aabba ka noqo naagtii ilmihi wala wareeg naagtii ilmihi ba ninkii sidii uu kula wareeg waxa la yiri ninkii markay tala saa ugu cadaatay talu raadiye waxa la ragta shadeecir waa tulaataa kan labadeed rag buu tagay wuxuu yiri nimayo tacadigaas aan galay arintaas ay ugu dhacday walaalahay telefoonada iga qaban maayaan naagteedii iyo ilmahaygiina nin baa Yurub ku haysta sidaas ay ugu dhacday talaha la iga raadiyo waxay yiraahdeen warinkaar kugu dhacday anna waxa sameeyna ma naqaane Nairobi waxa ka soo raadisaan ninkaas naagta qaraab ahaan ugu dhow waayahay buu yiri wuxuu soo helay hooyadii soo garooba ayuu soo helay wuxuu yiri nimayo ninkii dhacay hooyadii soo garooba Nairobi joogta maxaan sameeyaa waxa la tala nafkaaga dhow lama arkay habarta guurso habarta inaad guursato ayaa nolol kuugu dhow islaantii buu shukaansaday eeday waa doqoobay maan dhow anigu rag hadda ma eeday wallahi wali waad fiicanta eeday wali waad fiicantahay islaantii soo shukaaminaya islaantii buu guursaday abartii markuu guursaday abartii buu biilka la cunaa kiiba soo biilaya moogta markaasay tiri hooyo nin baan guursaday si anaa ku biilaya waa ninku islaanta ka dhacay isagu ma oga markaasuu biilkii u badiyay ninkii dhawartii baa ku soo noqotay nolol buu yeeshay waa fiicnaada waa ka foqday laakiin hadda islaantii ilmihii baa ka maqan kaliya wuxuu yiri waagin dambe hooyo adii adeerba waa idin qaadayaa oo sharci baan idin xareeyay say tira waayaha uu guuriyo marka bas marka waxa dhacday markaasay tiri waa nala qaadaya bas sharcigii baa loo xareeyay maalin heblaad ku qorantiin baa la yiri diyaaradda flightka farxadda ninkii ka badatay dhulka la wareegay warna la iskama hayo ninkii ilmihiisa haysta qaadaya isla kana hooyadii buu qabaa marka waa la qaaday ninkii Yurub markuu galay ayuu wuxuu yiri waxa soo dhaweynaynaa hooyo iyo adeer baan soo dhaweynaynaa inaan gabadhii xaaskiisa ahayd oo ninkan ka dhacay
soo dhaweynayna keen ahey aeroboorka markii ay la yimid oo diyaaradii jaranjartii inta loo furay laga soo degay buu asagiyaa soo hormaray isagii markuu soo hormaray habartii baa ku xigta se markay arkeen ayuu ninkii waa yaabay ninka adeerka la sheegaya waa kuma adeer kaluu ka sii sugayaa diyaaradda markaasi habartii markii salaantay ayuu yidhi hooy ay tiri adeerna waa kan markaasaa ninkii iyo islaantii hore oo iyana daalnimada ahayd oo de ninkan maaragtay iyaduna markaasi waxa weeyaan ka fasaqatay iyo habartii qofba walba waxa ku dhigay hadal ka soo baxa waa la waayay naxdin macnaha shoog iyo farxad macnaha qosol gariir waxa isugu darsamay baa ku dhacay markaasay tira hadba mid fiirisa marna odayga waxay fiirisaa wiilkeeda marna waxay fiirisaa ninkii la socday war ma haysta haa marka calaa kulli xaal marka waa markii ninkii dalkii galay ba wuxuu yidhi dhegayso horta waad khiyaantay macnaha sheekada ciwaankeeda waxayd muqayiliintiis khiyaantay waad khiyaantay haddana adeerkaa baan ahay islaantayduna adiga kuguma xirna oo tuug baa tahay dan hadday kuu tahay magaalada ku dhuuma hadda waddanka ku dhex dhuuma tanna anaa qaba hooyadaana anaa qaba ma garato horta ilmahaygana anaa leh soo maa labadaba anaa leh hadday dan kuu tahay istaa yeel dii kale adaa yaqaan meeshaad aadays marka sheekadaasi marka waa sheekadii igu yaabka badnayd oo aan qaadka markaasi ka akhriyey inkastoonan qoraagii qoray aanan haynin oo aan xusi karin marka intaasaan rabaa marka barnaamijkan marka inaan markaasi kaga qayb qaato waxaas keenayaana waa qaadkii dhibaatada uu leeyahay reeraha uu burburiyana way badan yihiin marka intaasaan ku soo gabangabeynayaa